بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم kusoo dhawaada daawadayaal iyo dhegeystayaal barnaamijkanagii habeerashada habboon oon alaba uga hadli jirnay qaababka wanaagsan ee wax loo beerto oo ah wax ku xiran kor u kaca dhaqaalaheena iyo dee inaynu u noolaano sidii adduunka looga nool yahay ama aanu horumarno dhaqaale ahaanna horumarno dee keena aan horumarno dee maskax ahaanna horumarno waxay ku xiran tahay qaabka aan wax u soo saarano iyo sida aan dhulkanaga uga faa'iidaysano marka barnaamijkanaga habeerashada habboon alab waxaan kuga hadalnaa faa'iidada ay leedahay wax beerashada iyo khasaarada ay leedahay in aan si habboon wax loo beeranin marka hadda meeshatan waxaad arkaysaa caws baa ku yaalo meeshatan waxa waaye waa war la qoday weeye lacag baa la geliyey waqti baa la geliyey waxaa loogu talagalay in xilliyada oo aan biyo jirin in marka ay webigu biyo leeyahay biyo inta lagu kaydsado deedna dee markii webigu uu go'o loo isticmaalo in dee beertii lagu waraabsado howle maalmoodkeedii socdo marka waa dhul ka mida beerta marka haddii uu sidiisaan macnaha looga faa'iidaysan lahay oo biyihii looga faa'iidaysan lahay waxay ahaan lahayd dee wax fiican oo wanaagsan oo shaqaynaya hadda laba faa'iidaba way seegtay midda koowaad waxay seegtay shaqadii loogu talagalay oo waa kaasoo coos baa isaga yaalla hadda waa iska baaliyooday waa baaba'day wax faa'iidana hadda ma lahan laakiin waxay kaloo seegtay macnaha shaqadeedii hore uu qaban jirto beer ahaan way seegtay oo hadda beer ma ahan waa kaa waa dee kii ii sheeg waa iska meeshaas bannaan oo iska dee halaysan marka dhul ahaanteedii waa laga saaray oo macnaha waa laga qaaday oo waxaa la sameeyey beeraha waxaa loogu talagalay war ahaan wartiina kuma shaqaynayso marka waxa waa dhul aan laga faa'iidaysanin dhul aan laga faa'iidaysanin waxay leedahay problem bay leedahay dhulkana laga faa'iidaysanin because dhulka kan ilaahay wuxuu ku siiyay inaad ka faa'iidaysato karaamada iyo wanaagga kaliya oo aan dheernahay dadka kale ama macnaha noolayaasha kale oo ilaahay abuurtay waxa weeye inaynu ka faa'iidaysano dhulkanaga caqliganaga wanaaganaga iyo dee waxa weeye dee inaanu nahay dad mas-uuliyaddaas qaaday marka waxaynu luminaynaa haddaynu dhulkanagiisaanu aan ku hayno ama aysaan uu iska yahay waxay noqonaysaa inaan luminay dee karaamadii ilaahay nagu sheegay marka waan rajaynayaa in laga faa'iidaysan doono dhulka kan noqon doono dhul laga faa'iidaysto wax galmaad leh laguna baraarugo in dee dhulkanaga aanu wax ka soo saarano oon wax badan ka ogaano wax beerashada iyo beeraha markaan leenahay wax beerashada iyo beeraha waxa waa beer waxaa noqon kartaa meel kasta oo qofka dee qof wax un ku rido laakiin marka la yidhaahdo beerashadu waxa weeye waa dee in wixii la manaafacadsado si wanaagsanna loo manaafacadsado dhulkii loo isticmaalo si wanaagsan oo laga faa'iidaysto marka barnaamijkanagii maanta habeerashada habboon halkaas baynu kusoo gebagabeynaynaa waa miskiinkii allo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wabilaahi towfiiq